محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وحويدي سنينا تبارك وتعالى مركهوري إنه بشا نبدي نبو قارسيو عافي ماذي نبو قارسيو دي إلهي إنا قارسينا إنه إنا وافتشيو خير ككتشرة inaan sida ugu fiican uga faa'iideysano inuu inaga dhigo dadka ramadaanka la xoreynayo oo la cafinayo la saamaxayo kuwa inuu ilaahay ugu daro tabaaraka wa tacaala. arinta ku saabsan bisha ramadaan iyo fadliga ay leedahay wax kamida culimada tilmaamay wixii dhimana haddaan raacino waxaa u horeeya inaan tilmaano sideedaba shay in la fadilo oo waxyaabaha kale la yiraahdo wuu ka sitaa wuu ka fadli badan yahay waa hawl ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala. ilaahay dhulku kala fadilay Makka wuxuu ka dhigay iyo xaramka dhulka meesha ugu fadli badan. ربي تبارك وتعالى الزمنك iyo waqtigu kala fadilay Ramadan wuxuu ka dhigay zamanka waqtiyada ugu fadli badan mid kamid malaa'iktu kala fadilay rusushii buu kala fadilay nabigeena sallallahu alayhi wasallam sayyid waladi aadam buu ka dhigay waakada ilaahay isagoo adoomadiisa wada abuuray buu hadana kala fadilay hatta quraanki oo ilaahay kalaamkiisa فهذا كلا فضلا وسورة القرآن كأوي وفاتحة آيات القرآن كأوي وآية الكرسي مرك إلهي وكلا فضلا وكلا سريسية إلهي بانا إسكالة تبارك وتعالى حكمة بانا كجرت فيش رمضان مرك وحي كمتا الزمن كإلهي وفضلك قوني قاسي وكمدي هاي فضلك إذا وحا كمدا وإلهي كفضل تبارك وتعالى تيرك أفراد وتيرك إسلام ككبدة أيو بيشن إلهي قليه تبارك وتعالى تيرك الصنك لو تيرك أفراد وصنك واجبك أو فرضك بيشن رمضان بو إلهي كليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله وكيل تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه بشاسا إلهي كو آدي ركن قاسية تيركاس وقت كلا صومك فرضك واجبك أو وقت كلا مالي وقت قاسا لقليي وحيا لها بيشو كسو عنك هاي بكمت حكم إذا وقضب كلابادا قرآن كبا إلهي تبارك وتعالى إيضانا كوغوني يلي سودقي دي سي سيدو الشيخ هذا الشرح يا شيخ محمود سودقيدي قرآن كبا بيشان لغو خاصي علي أيضا وفضلي يديراد إلهي السيئ أون للقب بيشان وحكم إذا سنتك أردن هبين نديس هبينك أغو فضلي بضان أيا بيشان إلهي قلي أيضا لما وداغو وهبينك ليلة القدر والشيخ شرحي وخيرك يضاعد للي ما داي أي أردقنتو كم بلود خير للي مدوكله السنة هذه لو بدلنا وسديتني يسدح سرو هي السيادة واي هل هبين شقاء القواتي ما وحي أردقنتها سديتني يسدح سرو وحادي معه يعني وحي كده يبتي أضو هذا الويديو كله هل هبين هداد شقيس سيديتني يصدح سنة وصوصعت واحد عوني لهيد ايد بيلان لهيد ايد مصروفان لهيد ايد كل نوران لهيد هل كهبين الشقيسان لغسيني هدي سان لين لي لها ما عيد باسيحان له عروته حتى وينو كعين لهين صوما لأنه وحوي وحي كلو دبي بكاكا في سيبه سيديتني صدح سنة يا نوران دونوا هذا لبها بين لبا صراع اسكو درسد 3 سنه warkeeda iska badaa marka
habeenkaas qiimaha badan baa ilaahay bisha ramadaan geliyay khasaa'isteeday ka mid tahay aan lala wadaagin bishu sidoo kale waxaa ka mid ah fadaa'isheeda waa shahrul maghfira waa bil dambi dhaaf wey ilaahay tabaaraka wa tacaala adoomadiisa waa cafiya waa saamaxa acmaasha la sameeyo oo dhan dambi dhaaf baa ku jira soonkii waxaa la yidhi ruuxii ramadaan sooma dembigiisii hore waa la dhaafay xadiiskii abu hurayra saxiixayn habeenadeeda ruuxii salaada isu taaga dembigiisii hore dhan waa la dhaafay xadiiskii kale waa kii ahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam yani salaad ilaa salaada kale laga gaadhay dunuubta ilaahay ku dhaafaa ramadaan ilaa ramadaan kale haddii laga fogaado dembiyada waaweyn yani ramadaankan markaad si fiican u soonto ramadaanka kiisa kale intaad ka gaadhayso wixii dembiye yaryar oo dhan ilaahay tabaaraka wa tacaala saasuu ku dhaafaya ramadaankaas soonkaasaa dhaafay lagu dhaafaya marka waa shahrulmaqfir waa shahru dembi dhaaf waay ilaahay khalaa'iq badan iyo addoommadiisa in badanoo ka mid a ayuu saamaxaa oo shahrulghufraan waay waxaa ka mid a waxyaalaha fadaa'isha ay leedahay acmaasha la sameeyo khayrka la sameeyo bisha ramadaan la mid ma aha bilaha kale cumradii baa waxaa la yidhi haddaad ramadaan gudataan xaj bay u dhigantaa way ka duwan tahay bilaha kale ictikaafkii ayaa ka duwan oo bilaha kale uma badnay nebigu inuu ictikaafo sal alla alay wasalam ramadaan buu ictikaafis jiray weliba 10ka dambe ayuu u badnaa sidaasay xaasaskiisu markuu dhintayna ka dhaxleen oo saxaabadiisii ka dhaxleen waa cibaado weyn oo sida qaalibka bisha ramadaan la sameeyo waxaa ka mid ah qiyaamkii iyo salaadii taraawiixda ee la isugu imaanayay ee la wada tukanayay nebigu ramadaan buu sameeyey sal alla alay wasalam sidaasayna muslimiintu ku dhaxleen jiil can jiil ilaa maantana ay ku socotaa waxaa ka mid a khasaa'ista ay leedahay akhriskaad qur-aanka oo sheekhu sharxay khasaa'isteeda waxaa ka mid a habeenka ugu horreeya ramadaan dhasho bishu dhalato isbeddel baa ka dhacaya adduunka isbeddel raadkiisu inoo muuqdo ayaa dhacaya muxuu isbeddelka dhacaya sida nebigu ku sheegay xadiidka saxiixayn ku yimid iyo qeyrkoodba habeenka ugu horreeya markuu ramadaan dhasho waxaa la furayaa iridaha jannada leanna khayrka iyo wanaagga jannada lagu galaa badanaya iridihii naartana waa la xidhaya leanna wixii dadka naar geyn lahaa baa yaraanaya iridihii naartana waa la xidhaya qodobka saddexaadii waxa weeyaan shayaadiintii dadka duufsan jirtay oo khayrka ka hortaagnayd xumaantana ku xambaaraysayna kuwoodii sii dardarnaa waa la xidhxidhi waa la katiinadaynaa inta ramadaan ka dhammaanayo way xidhxidhnaanayaan wixii dadka ay ku samayn jireen bilaha kale kuma samayn karaan ramadaan xadiidka qaar waxay leeyihiin shayaadiintii baa la silsiladayn waa la katiinadayn waa la xidhxidhi xadiid kalaa sii sharxay oo wuxuu leeyahay maradatu shayaaiin shayaadiinta kuwoodii madaxa adkaayee sharka yani waxuu sharka badnaa madaxda ahaa kuwaasaa la xidhxidhaya kuwo yaryaroo ruuxu hadduu dadaalo uu ka adkaan karo yaa jooga iyo naftaadii sharlayda ahayd labadaasaa marka kugu sallidan saas daraaddeed isbeddelkaa dhacaya iyo shayaadiintii in shaqo laga qabtoo la xidhxidhay innaga raadkoodaa inoo muuqda midhihii ka dhashaa inoo muuqdo raadka inoo muuqda wuxuu yahay ramadaan markuu saa u dhasho goobaha khayrku waa buuxsamaya masaajidii meelga istaaga ma leh ruuxii salaada faradka lagu kari lahaayee tacbaanka ahaa waxaad arkaysaa 11 ragcadood buu taagnaanayaa juz baa lagu dul akhrinaya meelaha qaarkood 13 ragcadood buu taagnaanaya juz baa lagu dul dhamaynaya 2 juz 3 juz baa marka qorto lagu dul dhamaynaya wuu taagnaanaya 10 daqiiqo salaada waajibkaana muusan taagnaan jirin kolba lug buu qaadi jiray oo kolba lug buu ku istaag jiray rafaadka haysta maxaa isbedelay
يا waxba isbedelay dad badan oo masaajida aqoon jirin baa soo galay masaajida sidaas daraadeed xagee isbedelku ka yimid isbedelku wuxuu ka yimid shayaadiintii la qabtay ayaa dad badani ka soo fakadeen shayaadiinta dad baa u xirxiran maxaabiista ugu jira askarigii ku hortaagnaa ee xabsiga hortaagnaa hadii laga qabto isaga xabsi la dhigo soo carari maysid marka dadka waa maxaabiis soo fakatay waa maxaabiis ridaha soo jabiyay waa afarka aan arkaynaa waa ka nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam oo shayaadiinta la xirxiray ayay ka iimaanaysaa inay dadku ay khair ka soo qaabilaan waxay khaas ku tahay iyadana bisha ramadaan inay khaas ku tahay waxaad gorani markii bishu saa u baxo la ciido habeenka ciidda aba dadkii masaajida buuxinayay arkimays war dadkii xagee kala aaday maxaa ka haystay ninkii la soo daayay baa qaar badan yaa ganafka ku dhuftay marka waa khasaa'ista bishay kamida waxa kamida khasaa'isteeda bishu waa bil ilaahi tabaaraka wa taala adoomadiisa in badan oo kamida naarta uu ka saamaxo naarta ka cafiyo naarta ka xoreeyo nabigeena waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri habeen kasta oo ramadaan habeenadiisa kamida ilaahay wuxuu leeyahay adoomo uu naarta ka xoreeyo riwaayada qaarkood waxay leeyihiin marka la afurayo inda fitrihi marka la afurayo inda kulli fitri markastoo la afurayo dad badan baa naarta laga xoreynaya iyadana waa ramadaan ayaa lagu sheegay maziyada iyo khasisadaas waxa kamida bisha ramadaan waa shahru sabri waa bil uu soo baxo sabirka dadka sabirkooda iyo adkaysiga ruuxa baa soo baxa daacada ilaahay lagu sabro oo tan hadda tilmaameynay waxa laga yaabaa marka ramadaan uu sanahayn inaad soonto kuma fududa laana waxa way quraacdaad baratay iyo qadadii iyo xoogagii aad la qabsatay baadan joojin karin laakiin bisha ramadaan markay soo gasho soonku waa fududii daacadii waad ku sabri salaadii habeenkii waad ku sabri quraan akhriskii waad ku sabri daacadii sabirka lagu sabray adkaysiga loo leeyahay baa muuqanaya macaasidii iyo dunuubtii oo laga sabray baa soo baxaysa oo dad badan oo qasan jiray bilaha kale waa ka sabrayaan bisha ramadaan ninkii balwad lahaa xataa qaar badan oo wax mubaaxaad fara badan baa laga fogaanaya oo looga fogaanaya muxuu ahay khayrkan in laga faa'iideysto waa bil sabir marka sabirkaas marka ilaahay wuxuu ku siinayaa dadka wax weyn inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisaab sabirkaas ilaahay wuxuu ku bixinayaa ajir aan xisaab lahayn waxa kamid oo bilaa bisha kamida khasaa'isteeda kamida waa shahru taskiyati an-nufus wat-taghallub 'ala an-nafs al-ammara bis-suu wa bishan wa bilaha nafta la daahiriyo oo ruuxu uu ka adkaan karo naftiisii sharleyda ahayd waaba la soo dhaweeyba naftii ka adkayde ku jiidatay baa lagaaga kaalmeeyay waa daciif marka bisha ramadaan saaxiibkii garabka uu ahaayay shaytaan ahaana waa laga qabtay horta waa iyada kaligeed ayadiina waa la daciifiyay ayadoo daciifa waxay kaaga baahan tahay marka waxoogaa inaad ku yara dhiirato awoodna yara isticmaasho waad ka adkaan kartaa marka naftaada markayna daahiriso amalkan faraha badan soonkan taacadan faraha badan shaytaanka laga qabtay waxay keeni kartaa in aad samayso isbedel tagyiir nahwa al-afdal in aad isbedesho xagga wanaagsan aad isu bedesho khayr badanoodan sameyn kareynin ramadaanku waa ku baraya hore aad u sameyn jireen xumaan fara badanood ku jirtay ramadaanku waa ka goynaya naftaadii oo ka adkayd wuu ku jabinaya sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay wax yar inaad riixdo ramadaanku intuu ku jiro hadaad dadaal fiican samayso naftaada waxaad gaarsiin kartaa meelayna dib damba kaaga soo noqon karinba mar damba ayna kula murmi karinba dagaalkeeda aad intaad ku dhufato muxuu ahaayay laad fiican ku dhufato meel fog baad gaarsiin kartaa ayna ka soo noqon kareen laakiin hadaad meelo dhadhow iyadoo joogta ramadaanku ku dhaafo intay kugu soo rogaal celisay ku lagti jaanis weyn way marka
إن نفط الله ظاهريو قلوبت الله ظاهريو نفط الله تربييو لتسكييو بشهر رمضان كانس آدي آد وي وحكم إذا بشاني أيلاذا هاي وكم إذا مزايات كذا بشو وبالعافمات لأنك الدنيا ده حتى مركل في وبالعافمات صوت وحوي انتظم فرها بدن إدخال الطعام على الطعام انتظم أن أسكدوا الجينين عذر ودم باكدش عيل باكدش عيل كينا هذا عذر بالنقض عذرنا وحو كي ماذا انت بدن سيحو لماذا الطب قلت الماميان انتظم أن ماشا لقوق قرحيو يا خاصة مقالة إني شوقنايو انتدين مقو بينه ما دقاقينه ما صعونينه ما ديدينه حفيز بان فردنا دكان بان فردنا دقاق ماله علوشينا وابوحيني maxaa iimaanaya marka waxaa iimaanaya calooshii inay jirrato hadday jirratana jirkii waa jirraday cudurraa dhashay ilaahu yaa magaalo naga saaran taagana kiniini baa jeebabka inooga wada buuxo aan ku wada soconnaa ooma mid dhiikar qaba mid sonkor qaba mid cholesterol qaba jeebkaasaa inoo wada buuxa waxa maxaa keenaya oo in badan sabab u ah cuntadan taata aan calooshiiba la baneenin ilaa caloosha inay nafistay u baahan tahay ya waa ka nabigeenu yiri sallallahu alayhi wasallam hatta markaad cunaysaan wal caloosha saddex u qaybiya ya thuluth li لطعامه وثلث للشراب وثلث لنفسه حتى مركز cunayso saddex u qaybi qayb cunto gali qaybna cabitaan gali qaybna banee aad ka neefsatid saddexdiiba hadaad bariis ka buuxiso ka war يا عبيتانكي والدرسار نفسنا ما بجربه برينا وحوي وقاس باي هي بلايا يقول عادي وحبات بالله بين بشهر رمضان مركه وجهاني سويد ساس دراديد با يعني حتى اسكرنا مسلمين تا قالدا دخاتيرتودا iyo kuwooda cilmiga dibbiga ku takhasusay waxay leeyihiin soonka iyo caloosha in la baneeyo waa nooc oo sixadii caafimaad kamid caafimaad weyn baa ku jira ilaa jawaanib fara badan waxay leedahay cibaadaadku ay leeyihiin jawaanib faa'iidana waa leeyihiin salaada habeenkii Soomaaliya salaada habeenkii salaatuleelka la taagnaanayo rukuucda lagu daahayo sujuudda lagu daahayo waa exercise waa dhinac marka laga fiiriyo waa cibaado laakiin dhanka kale jidhkii baa jimicsanaya jidhkii baa jimicsanaya mar waa taagan yahay oo lugii baa jimicsanaya mar waa foorta mar waa sujuuda waxa soo dhan circulationkii iyo dhiigga dhaqaaqiisii iyo jidhkii jimicsigiisa waa dhinac faa'iido adduunyaha baa ku jira caafimaad soonkii sidoo kale saas daraadeed bishani khasaa'isteeda lama koobi karo laakiin aan ku soo gabagabeeyo fawaa'ida faraha badan ee faa'iidooyinkaasi yaa iskale ma dadkoo dhan baa iskale maya intaasoo khayr iyo ka badan iyo wixii la sheegay waxaa iskale ruuxii laba sharti laga helo laba qodob xaqiijiya qodobka koobaad wax weeyaan in uu ruuxu dadaalo hadduu dadaali waayo oo bishu dhaafto isagoo ka faa'iideysanin ramadaan ruuxa faa'iido uma ahe khasaaray ku tahay wabaal iyo cuquubay ku tahay waa ka jibriil nabigeena u yimi sallallahu alayhi wasallam malakul jibriil alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam nabigeena u yimi sallallahu alayhi wasallam صدح روح وهباري ملك الجبريل نبي محمد آمين بيقول صلى الله عليه وسلم صدح الروح اللي هباري كو حكا روح رمضان أصو قلي ورمضان رمادي يسقون لودن بدافع هباره الله كريد وكاس الله فوقيه يا جبريل بهباري نبي محمد محيول آمين الله أقبل واي مركا كان أنكفى إذا سنين ددالين waxa fadli iyo khayr la sheegayo oo dhan asaga xuquuqay ku noqotay laana wixii jaaniska ilaahay siiyay ka faa'iideysan waay saas daraadeed marka dadaasho waa koow hada dadaali weydo ramadaan way waad sii fogaan mooyaane cadaab baad sii mudan mooyaane wanaag iyo khayr ka dheefimaysa talabaadi waxa weeyaan dadaalkaagu inuu waafaqsan yahay hadigii iyo sunnadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam sonkaaga salaadaada sadaqadaada umradaada khayraadkaad sameynayso waa inay waafaqsan tahay
shareecadii nabi maxamed ka tagay sallallahu alayhi wasallam see rasuulku u sameeyay sallallahu alayhi wasallam taana haday dhici weydo inta dadaasho dadaalkaagu uu baal maro sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo sidii shareecadu wax u jidaysay markaana wax weeyaan waxba maada ka faa'iidin ramadaan soonkaagii iyo salaadii badneed iyo cibaadaadkii iyo taa'aadkii iyo sadaqaadkii hal bacad lagu lisay waa ka nabigu sallallahu alayhi wasallam rubba saa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar dad badan waxa jira taagan habeenkii salaad u taagan soo jeedkooda salaada u taagan yihiin wax kale ka heli maayaan hurdada bay ka tageen laakiin waxa malaha qaar waxa jira maalinkii oo dhan sooman laakiin soonkooda kaliya waxay ka heleen gaajo iyo oon bas waxa jira malaha man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun laba qodob marka xaqiiqi inaad dadaasho dadaalkaagana inaad waafajiso hadigii iyo sunnadii iyo dariiqii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu alayhi amal yar oo sunnada nabiga waafaqsan baa ka fiican amal farabadan oo sunnada nabiga garamarsan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi labada qodob markaad xaqiijiso waxa khayr iyo fadiilo iyo wanaag laga hadlayo ruuxa waxaad ka mid tahay dadka mutaybaad markaa ka mid noqonaysaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala haddii kale way kugu dabagadoomi intaasi ayaan kusoo gabagabaynay insha allahu tacaala fadaa'ishi bisha ramadaan soonka fadaa'ishiisa mid walba fadaa'il gooni u leeyahay bisha fadaa'isheedan ka hadlay laakiin soonka fadaa'ishiisa haddii laga hadlo waa bad kale salaada habeenkii la tukado fadaa'isheeda haddii laga hadlo waa bad kale qur-aankii la akhrinay fadaa'isha sheekha ka hadlay kuwaasi waa gooni way laakiin si guud bisha iyo fadaa'isheeda ayaynu wax uga taataabanay tawfiiqda Allah ina waafajiyo ilaahina tabaaraka wa tacaala bishaas iyo khayraadkeedii iyo wanaageedaas kuwa ka faa'iideysta Allah inaga dhigo adaa billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يا الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي وحويدي سنينا تبارك وتعالى مركهوري إنه بشا نبد إنه بقارسيو عافيماد إنه بقارسيو دي إلهي إنا قارسينا إنه إنا وافجيو خيرك كجرة إنا سيدا أغفي عنك أغفى إيدي السنة إنه إنا قردقو دادك رمضان كالحرين أيوه والعفين أيوه والسامح أيوه كوا إنه إلهي نقدر تبارك وتعالى أريد أقول سابسا بشهر رمضان إيو فضلك إلى ذا هاي وحكم إذا علماء المامي wixii dhimana haddaan raacino waxaa u horeeya inaan tilmaanno sideedaba shay in la fadilo oo waxyaabaha kale la yidhaahdo wuu ka sitaa wuu ka fadli badan yahay waa hawl ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala ilaahay dhulkuu kala fadilay maka wuxuu ka dhigay iyo xaramka dhulka meesha ugu fadli badan rabbi tabaaraka wa tacaala zamanka iyo waqtigu kala fadilay ramadaan wuxuu ka dhigay zamanka waqtiyada ugu fadli badan mid ka mid malaa'igtu kala fadilay rusushii buu kala fadilay nabigeena sallallahu alayhi wasallam sayyid waladi aadam buu ka dhigay وهكذا إلهي إسقوا أدومدي سودا أبو ريب وهذا كلا فضله حتى قرآنك وإلهي كلامك ساء وهذا كلا فضلا وصورة قرآنك أول وفاتحة آيات قرآنك أول إنه وآية الكرسي مرك إلهي وكلا فضلا وكلا سريسية إلهي بانا إسكالة تبارك وتعالى حكمة بانا كجرت فيش رمضان مرك وحي كبتا الزمن كإلهي وفضلك قونيك عسيب وكمدي هاي فضلك إذا وحا كمدا وإلهي كو فضل تبارك وتعالى تيرك أفراد وتيرك إسلام ككبدا أيو بيشن إلهي قليه تبارك وتعالى تيرك الصنك لو تيرك أفراد وصنك واجبك أو فرضك بيشن رمضان بو إلهي كليه
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله أكيد تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه بشاسا إلهي كو آديي ركن قاسية تيركاس وقت كلا صوم كفرض كواجب كأو وقت كلا مالي وقت قاسا لقليي وحيالها بيشو كسو عنتها بكمت حكم إذا وقضب كلابادا قرآن كبا إلهي تبارك وتعالى إيادنا كوغوني إلي سودقي دي سي سيدو الشيخ وهذا الشرح يا شيخ محمود سودقي دي قرآن كبا بيشان لغو خاصي إلي أيضا وفضلي يديراد إلهي السي أون للقب بيشان وحكم إذا سندك أردن هبين نديس هبينك أغو فضلي بدن أيا بيشان إلهي قلي أيضا لما وداغو وهبينك ليلة القدر والشيخ شرحي وخيرك يضاعد للي ما داي أي أردقنتو كم بلود خير للي مدوكله السند هذه اللي بدلنا وسيديتني السدح سنو هي سيادة واحد هل هبين شقاء القواتي ما وحي أردقنتها سيديتني السدح سنو وحادي معه يعني وحي كده ينتي أضو هذا الويديو كالي هل هبين هداد شقيس سيديتني السدح سنو صوصعت waxaad cuni lahayd eed biilan lahayd eed masruufan lahayd eed ku noolaan lahayd halka habeen shaqaysaa lagu siinaya hadii saaleen idil ama cid ba seexan lahayd caruurta xataa waynu kicin lahayn Soomaa laana waxa weeye wixii kale oo dhabayba ka kaafisayba 83 sano yaa noolaan doono way hadda laba habeen laba sano isku darsada 3 sano warkeeda iska badaa marka habeenkaas qiimaha badan baa Ilaahay bisha Ramadaan galiyay khasaa'isteeda ka mid ah aan la wadaagin bishu sidoo kale waxa kamid ah fadaa'isheeda wa shahrul maghfira wa bil dambi dhaafway Ilaahay tabaaraka wa ta'ala adoomadiisa waa cafiya wa saamaha a'maasha la sameeyo dhan dambi dhaaf baa ku jira soonkii waxa la yiri ruuxi Ramadaan sooma dambigiisa hore waa la dhaafay xadiiskii Abu Hurayra saxiixay habeenadeeda ruuxi salaada isu taaga dambigiisa hore waa la dhaafay xadiiskii kale waa kii ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam yani salaad ila salaada kale laga gaaray dunuubta Ilaahay ku dhaafaa Ramadaan ila Ramadaan kale haddii laga fogaado dambiyada waaweyn yani ramadaankan markaad si fiican u soonto ramadaanka kiisa kale intaad ka gaadhiso wixii dambiye yar yar oo dhan Ilaahay tabaaraka wa ta'ala saas ku dhaafaya ramadaankaas soonkaas dhaafay lagu dhaafay marka waa shahrul maghfir waa shahru dambi dhaaf waa Ilaahay khalaa'iq badan iyo adoomadiisa in badan oo kamida ayuu saamaxaa oo shahrul ghufraan waxa kamida waxyaalaha fadaa'isha ay leedahay a'maasha la sameeyo khayrka la sameeyo bisha Ramadaan la mid ma aha bilaha kale umradii baa waxa la yiraahdaa haddaad Ramadaan gudataan xaj bay u dhigantaa way ka duwan tahay bilaha kale i'tikaafkii ayaa ka duwan oo bilaha kale uma badnay nabigu inuu i'tikaafo sallallahu alayhi wasallam Ramadaan buu i'tikaafis jiray waliba 10 ka dambe ayuu u badnaa sidaas ay xaasaskiisu markuu dhintayna ka dhaxleen oo saxaabadiisii ka dhaxleen waa cibaado weyn oo sida qaalibka bisha Ramadaan la sameeyo waxa kamid ah qiyaamkii iyo salaadii taraawiixda ee la isugu iimaanayay ee la wada tukanayay nabigu Ramadaan buu sameeyay sallallahu alayhi wasallam sidaas ayna muslimiintu ku dhaxleen jiil aan jiil ilaa maanta ay ku socotaa waxa kamid ah khasaa'ista ay leedahay akhriskaad quraanka oo sheekhu sharxay khasaa'isteeda waxa kamid ah habeenka ugu horeeya Ramadaan dhasho bishu dhalato isbedel baa ka dhacay adduunka isbedel raadkiisu inoo muuqdo ayaa dhacaya maxay isbedelka dhacaya
sida nabigu ku sheegay xadiidka saxiixayn ku yimid iyo qeyrkoodba habeenka ugu horeeya markuu ramadaan dhasho waxaa la furayaa iridaha jannada laana khayrka iyo wanaagga jannada lagu galaa badanaya iridihii naartana waa la xidhaya laana wixii dadka naar geyn lahaa baa yaraanaya iridihii naartana waa la xidhaya qodobka saddexaad waxa weeyaan shayaadiintii dadka duufsan jirtay oo khayrka ka hortaagnayd xumaantana ku xambaaraysayna kuwoodii sii dardarnaa waa la xidhxidhi waa la katiinadaynaa inta ramadaan ka dhammaanaya way xidhxidhnaanayaan wixii dadka ay ku samayn jireen bilaha kale kuma samayn karaan ramadaan xadiidka qaar waxay leeyihiin shayaadiintii baa la silsiladayn waa la katiinadayn waa la xidhxidhi xadiid kalaa sii sharxay oo wuxuu leeyahay maradatu shayaaiin shayaadiinta kuwoodii madaxa adkaayee sharka yani waxa sharka badnaa madaxda ahaa kuwaasaa la xidhxidhaya kuwo yaryaroo ruuxu hadduu dadaalo uu ka adkaan karo yaa jooga iyo naftaadii sharlayda ahayd labadaasaa marka kugu sallidan saas daraaddeed isbeddelkaa dhacaya iyo shayaadiintii in shaqo laga qabtoo la xidhxidhay innaga raadkoodaa inoo muuqda midihii ka dhashaa inoo muuqdo raadka inoo muuqda wuxuu yahay ramadaan markuu saa u dhasho goobaha khayrku waa buuxsamaya masaajidii meelka istaaga ma leh ruuxii salaada faradka lagu kari lahaayee tacbaanka ahaa waxaad arkaysaa 11 ragcadood buu taagnaanayaa juz baa lagu dul akhrinayaa meelaha qaarkood 13 ragcadood buu taagnaanayaa juz baa lagu dul dhamaynaya laba juz 3 juz baa marka qorobta lagu dul dhamaynaa wuu taagnaanaya 10 daqiiqo salaada waajibkaana muusan taagnaan jir kolba lug buu qaadi jiray oo kolba lug buu ku istaag jiray rafaadka haysta maxaa isbedelay waxba isbedelay dad badan oo masaajidda aqoon jirin baa soo galay masaajidda sidaas daraaddeed xaggee isbedelku ka yimid isbedelku wuxuu ka yimid shayaadiintii la qabtay ayaa dad badani ka soo fakadeen shayaadiinta dad baa u xidhxidhan oo xabiista ugu jira askarigii ku hortaagnaa ee xabsiga hortaagnaa haddii lagaa qabto isaga xabsi la dhigo soo carari maysid marka dadka waa maxaabiis soo fakatay waa maxaabiis ridaha soo jabiyey waa afarka aan arkaynaa waa ka nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam oo shayaadiinta la xidhxidhay ayay ka imaanaysaa inay dadku ay khair ka soo qaabilaan waxay khaas ku tahay iyadana bisha ramadaan inay khaas ku tahay waxaad gorani markii bishu saa u baxo la ciido habeenka ciidda aba dadkii masaajidda buuxinayay arkimayso war dadkii xagee kala aaday maxaa kacaystay ninkii oo la soo daayay baa qaar badan yaa ganafka ku dhuftay marka waa khasaa'ista bishay ka mid tahay waxaa ka mid ah khasaa'isteeda bishu waa bil ilaahay tabaaraka wa tacaala adoomadiisa in badan oo ka mid a naarta uu ka saamaxo naarta ka cafiyo naarta ka xoreeyo nabigeena waxaa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi habeen kasta oo ramadaan habeenadiisa ka mid a ilaahay wuxuu leeyahay adoomo uu naarta ka xoreeyo riwaayada qaarkood waxay leeyihiin marka la afurayo inda fitrihi marka la afurayo inda kulli fitrin mar kastoo la afurayo dad badan baa naarta laga xoreynaya iyadana waa ramadaan ayaa lagu sheegay maziyada iyo khasisadaas waxaa ka mid ah bisha ramadaan waa shahru sabri waa bil uu soo baxo sabirka dadka sabirkooda iyo adkaysiga ruuxa baa soo baxa daacada ilaahay in lagu sabro oo taan hadda tilmaamaynay waxaa laga yaabaa marka ramadaan uusan ahayn inaad soonto kuuma fududa laanna waxa way quraacdaad baratay iyo qadadii iyo xoogaagii aad la qabsatay baadan joojin karin laakiin bisha ramadaan markay soo gasho soonkii waa fudud yahay daacadii waad ku sabri salaadii habeenkii baad ku sabri quraan akhriskii baad ku sabri daacadii sabirka lagu sabray adkaysiga loo leeyahay baa muuqanaya macaasidii iyo dunuubtii oo laga sabray baa soo baxaysa oo dad badan oo qasan jiray bilaha kale waa ka sabrayaan bisha ramadaan ninkii balwad lahaa xataa qaar badan oo wax mubaaxaad fara badan baa laga fogaanaya oo looga fogaanayaa muxuu ahay khayrkan in laga faa'iideysto waa bil sabir marka
sabir kaasa marka ilaahay wuxuu ku siinayaa dadka wax weyn inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisaab sabir kaasa ilaahay wuxuu ku bixinayaa ajir aan xisaab lahayn waxa kamida oo bisha kamida ee khasaa'isteeda kamida wa shahru tazkiyati an-nufus wat-taghallub 'ala an-nafs al-ammara bis-suu wa bishan wa bilaha nafta la daahiriyo oo ruuxu uu ka adkaan karo naftiisii sharleyda ahayd waaba la soo dhaweeyayba naftii ka adkayde ku jiidatay baa lagaaga kaalmeeyay waa daciif marka bisha ramadaan saaxiibkii garabka uu ahaayay shaytaan ahaana waa laga qabtay horta waa iyada kaligeed ayadiina waa la daciifiyay ayadoo daciifa waxay kaaga baahan tahay marka waxoogaa inaad ku yara dhiirato awoodna yara isticmaasho waad ka adkaan kartaa markaa naftaada markayna daahiriso camalkan faraha badan soonkan taacadan faraha badan shaytaanka laga qabtay waxay keeni kartaa in aad samayso isbedel tagyiir naxwa al-afdal in aad isbedesho xagga wanaagsan aad isu bedesho khayr badanoodan samayn karaynin ramadaanku waa ku baraya hore aad u samayn jireen xumaan fara badanood ku jirtay ramadaanku waa ka goynaya naftaadii oo ka adkayd wuu ku jabinaya sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay wax yar inaad riixdo ramadaanku intuu ku jiro hadaad dadaal fiican samayso naftaada waxaad gaarsiin kartaa meelayna dib damba kaaga soo noqon karinba mar damba ayna kula murmi karinba dagaalkeeda aad intaad ku dhufato muxuu ahaayay laad fiican ku dhufato meel fog baad gaarsiin kartaa ayna ka soo noqon kareen laakiin hadaad meel dhadhow iyadoo joogta ramadaanku ku dhaaf intay kugu soo rogaal celisay ku lagti chance weyn way marka in nafta la daahiriyo qulubta la daahiriyo nafta la tarbiyeeyo la taskiyeeyo bisha ramadaan chance aad iyo aad u weyn way waxa kamida bishani ay leedahay oo kamida mazaayaadkeeda bishu waa bil caafimaad dhanka adduunyada xataa marka la fiiriyo waa bil caafimaad sababtu wax weeye cuntadan faraha badan idkhaalu ta'am ala ta'am cuntadan una iska dulgeynayno cudur oo dhan baa ka dhashay ayil baa ka dhashay ayilkiina hadda cudur buu noqday cudurna wuxuu ka yimaadaa inta badan say culimada dibbigu tilmaamayaan cuntadan uun meesha lagu gurahayo khaasatan magaalaynu joognaayo cuntadiina ma gubayno ma dhaqdhaqaaqayno ma soconayno ma dhididayno xafiis baan fadhinaa dukaan baan fadhinaa dhaqdhaqaaq male calooshiina waa buuxinay maxaa imaanaya marka waxaa imaanaya calooshii inay jirato hadday jiratana jirkii waa jiraday cudurraa dhashay ilaahu yaa magaalo naga saaran taagana kiniini baa jeebabka inooga wada buuxo aan ku wada soconnaa ooma mid dhiikar qaba mid sonkor qaba mid cholesterol qaba jeebkaasaa inoo wada buuxa waxa maxaa keenaya oo in badan sabab u ah cuntadan taata aan calooshiiba la banaynaynin ilaa caloosha inay nafistay u baahan tahay waa ka nabigeenu yidhi sal alay slam xataa markaad cunaysaan wal caloosha saddex u qaybiya thuluth liطacaamihi wa thuluth lisharaabi wa thuluth linafasihi xataa markaad cunayso saddex u qaybi qayb cunto geli qaybna cabitaan geli qaybna bannee aad ka neefsatid saddexdiiba haddaad bariis ka buuxiso ka war cabitaankii waa dulsaar neefsina maba jiraba barina waxa weeye gaas baa haye iyo balaaya ugu dhacday waxbaad bilaabayna bisha ramadaan marka waa jaanis weyn saas daraadeed baa yani xataa iska dhaaf muslimiinta gaalada dhakhaatiirtooda iyo kuwooda cilmiga dibbiga ku takhasusay waxay leeyihiin soonka iyo caloosha in la banneeyo waa nooc oo sixada iyo caafimaad ka mid caafimaad weyn baa ku jira ilaan jawaanib fara badanoo waxay leedahay cibaadaadku ay leeyihiin jawaanib faa'iidana waa leeyihiin salaada habeenkii Soomaaliya salaada habeenkii salaatuleelka la taagnaanayo rukuucda lagu daahayo sujuudda lagu daahayo waa exercise waay dhinac marka laga fiiriyo waa cibaada laakiin dhanka kale jidhkii baa jimicsanaya
ya jidkii baa jimicsanaya mar waa taagan yahay oo lugii baa jimicsanaya mar waa foorta mar waa sujuuda waxa soo dhan circulationkii iyo dhiigga dhaqaaqiisa iyo jidkii jimicsigiisa waa dhinac faa'iido adduunyaha baa ku jiro caafimaad ah soonkii sidoo kale saas daraadeed bishani khasaa'isteeda lama koobi karo laakiin aan ku soo gabagabeeyo fawaa'ida faraha badan ee faa'iidooyinkaasi yaa iskale ma dadkoo dhan baa iskale maya intaasoo khayriya ka badan iyo wixii la sheegay waxaa iskale ruuxii laba sharti laga helo laba qodob xaqiijiya qodobka koobaad wax weeyaan inuu ruuxu dadaalo hadduu dadaali waayo oo bishu dhaafto isagoon ka faa'iidaysanin ramadaan ruuxa faa'iido uma ahe khasaaray ku tahay wabaal iyo cuquubay ku tahay waa ka jibriil nabigeena u yimi sallallahu alayhi wasallam malakul jibriil alayhi wa ala nabiyina sallallahu wasalam nabigeena u yimi sallallahu alayhi wasallam saddex ruux buu habaaray malakul jibriil nabi maxamedna aamiin buu yiri sallallahu alayhi wasallam saddexda ruuxee la habaaray ka waxa ka ah ruux ramadaan u soo galay oo ramadaan dhamaaday isagoon loo dambi dhaafin habaar Allah ku rido kaas Allah fogeeyo ya jibriil baa habaaray nabi maxamedna wuxuu yiri aamiin Allah aqbal waay marka kan aan ka faa'iideysanin oo dadaalin waxa fadli iyo khayr la sheegayo oo dhan asaga xuquuqay ku noqotay laana wixii jaaniska ilaahay siiyay uu ka faa'iideysan waay saas daraadeed marka dadaasho waa koow hada dadaali weydo ramadaan way waad sii fogaan mooyaane cadaab baad sii mudan mooyaane wanaagii khayr ka dheefimaysa talabaadi waxa weeyaan dadaalkaagu inuu waafaqsan yahay hadigii iyo sunnadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam soonkaaga salaadaada sadaqadaada umradaada khayraadkaad sameynayso waa inay waafaqsan tahay shariicadii nabi maxamed ka tagay sallallahu alayhi wasallam see rasuulku u sameeyay sallallahu alayhi wasallam taana haday dhici weydo inta dadaasho dadaalkaagu uu baal maro sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo sidii shariicadu wax u jidaysay markaana wax weeyaan waxba maada ka faa'iidin ramadaan soonkaagi iyo salaadii badneed iyo cibaadaadkii iyo taa'aadkii iyo sadaqaadkii hal bacad lagu leeyahay waa ka nabigu sallallahu alayhi wasallam rubba saa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar dad badan waxa jira taagan habeenkii salaadu taagan soo jeedkooda salaada u taagan yihiin wax kale ka heli maaya hurdadan bay ka tageen laakiin waxa malaha qaar waxa jira maalinkii oo dhan sooman laakiin soonkooda kaliya waxay ka heleen gaajo iyo oon bas waxa jira malaha man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun laba qodob marka xaqiiqi inaad dadaasho dadaalkaagana inaad waafajiso hadigii iyo sunnadii iyo dariiqii nabigeena sallallahu alayhi wasallam amal yar oo sunnada nabiga waafaqsan baa ka fiican amal farabadan oo sunnada nabiga garamarsan sallallahu alayhi wasallam labada qodob markaad xaqiijiso waxa khayr iyo fadiilo iyo wanaag laga hadlayo ruuxa waxaad ka mid dadka mutaybaad marka ka mid noqonaysaa biidilaahi tabaaraka wa taala hadii kale way kugu dabagadoomi intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa insha Allah taala fadaa'ishi bisha ramadaan soonka fadaaishiisa mid walba fadaa'il gooni u leeyahay bisha fadaa'isheedan ka hadlay laakiin soonka fadaa'ishiisa hadii laga hadlo waa bad kale salaada habeenkii la tukado fadaa'isheeda hadii laga hadlo waa bad kale quraankii la akhrinay fadaa'isha sheekha ka hadlay kuwaasi waa gooni way laakiin si guud bisha iyo fadaa'isheeda ayaynu uga taataabanay tawfiiqda Allah inoo waafajiyo ilaahina tabaaraka wa taala bishaas iyo khayraadkeeda iyo wanaageedaas kuwa ka faa'iideysta Allah inaga dhigo adaabillahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi